ولو باكن ريفاس انت فهمت mostly dadka waxa dhiba reverse backing markaad backing meel tagto oo kale ina hal reverse backing u gelin karto laba gaari ina dhexdooda gelin karto gaariga waxaas soo cashirkaas soo duubi doona haduu ilaaro YouTube aan soo gelina TikTok na waan soo gelina soo la socotaan inta ma fahmi soo saasoo time ma haysto marka ay nuu goobsini kadib ninkan asraarna gaarigan qaadanayna backing ka soo duubana meel backing aadayna sida xaafadaha oo kale basementida ku yaalo ma fahmi basementida moogta leen leeyin sida leenka u galeedeen backing mostly dadku way u dhibaa dad waxa arkaysa horor u gali backing horor way ka wada adeegin dadka naam goos isku fududiyo horay laakiin dibku waxa waa reverse marka loo baxay uu dib badan yahay soo reverse kaas aan soo duubi doona insha Allah soo waxay anaga yar duubto ya su'aal weydiin kartaan ana wado ashirka way weydiin kartaan su'aal soo saas ay sheegaya ala ma la fahmi soo ashirkan bilaabeyna time aan ugu socdo soo maanta waxaan baranaynaa and shoot here probably this side some people they were complaining about need the chat so dadka ay dhayn camera ninka adu ku qoonaya chat kala rabo inuu ku qabto ani camera ma jecel inta badan so marka waxa la sameeyaa waxaan baranaynaa maanta basic mechanics ashirkan baranaynaa ashirkan waa lagu soo celiyaa marka ardadii hore hada tahay iyo hada cusub tahayba waan baranaynaa so maanta waxaan baranaynaa basic mechanics ma fahanteen basic mechanics waa wax yar oo aas ka waxa way biraha gaariga ama dalabo baalka marka gaariga wadaan gaariga waxa laga yaabaa inuu ka halaabo adoo wadada socoto waxa laga yaabaa inuu gaariga uu kharaabo mana garanaysid ma fahanteen mechanic raadin hadhow mechanic waxa laga yaabaa inuu ku qiyaamo oo ku dhahawo gaarigaaga waxaas ka haleysna wax yar ayadoo ka haleysna wax weyn ku wada qaadan markaas lacag double ku saaranaya ya so meesha waxa ku qoran hadda every student have to understand the following systems and how they work arday walba waa inuu fahmaa nidaamkan soo socdo iyo sida uu shaqeeyo inta ma la fahmo arday walba waa inuu fahmaa nidaamkan soo socdo iyo sida uu shaqeeyo nidaamka waxa laga wadaa waa car charging system waa habka gaariga uu qaato dabka meesha waxaan ku haysanaa battery waxaan ku haysanaa alternator waxaan ku haysanaa starter ignition switch waxaas dhan ku haysanaa marka muhiimadda waxa waa saddexdan la baranayaa maanta saddexdan waxa waa batteryga gaariga diinimada gaariga iyo motoorinka gaariga inta ma la fahmay Soomaali intaas ma lagu dhahaa marka batterygan ku bilaabaynaa horta batteryga intaan u imaanin gaariga waxa u imaanayna ignition switch meesha ku qoran tahay ignition switch waa garanaysaan maxaa waaye godka gaariga soo godka gaariga dadka inta badan ardayda ma garanayaan waxa ku qoran afar erey ba ku qoran oo ah leeto walba sida log words ku qoran yaryar soo oo lagu tala galay oo mid walba macno gooni u taagan tahay ereyadaas waxa ku qoran log ACC on start marka macalin ma ku dhaw gaariga kici ardayda waxa sameeyaan hal mar ay fara ku wada rogayaan waxay soo dhaafayaan logi waxay soo dhaafayaan ACC waxay soo dhaafayaan onti mana garanayaan hadhow examka hada aadan waa lagu weydiin that question waxa uu dhihi karaa maxaa waxan log maxaa laga wadaa log horta waxa waaye in English waxa waaye for security purposes waaye is to log the steering ma fahan steering ka lagu xiraa tuuga amal gaarigaaga waa soo qaad bakina gelisa meel alla gaariga waa la loo garayaa xaaj ma fahan gaariga waa la qufishaa hadda garanaynin sida loo xidhaadada aqoonin macallimiinta ku faansiinayaan ma fahan maanta kala jaanis haysatan ka faa'iideyst soo ashirkaasna horaan u duubay YouTube aan soo galiyay TikTok-na waan ku soo post karay mar anoo sameynay waliba practical marka log waxa waaye markii gaariga la xiray hadhow examka hada aadaan ninka instructor ka qaadaya examka yani imtixaanka ka qaadayo wuxuu sameyn karaa gaariga inuu log ka geliyo iyo ku dhiho furaha examka marka u fariisanaysaan iska ilaaliya gaariga furu ku dhiibi waad soo gashay gaariga haddaad soo gasho ha ku bilaabin furo iyo wax la mid ah gaariga markaad examka galeysaan muraayadaha iska saxda inuu gaariga marsho ku jirto fiir haduu geer yahay gaariga waa inuu neutral ku jiraa waxa laga yaabaa ninka exam ka qaaday inuu gaariga ka galiyo gear 1 ama gear u galiyo marsho haday noqoto 3 4
oo gaarigana lagu ma kiciyo marsho oo ku jirto taa la socda geerka markuu yahay manualka automatic waa iska caadi ma fahanteen automaticna waa inuu asagana joogaa parking oo ku jiro ama neutral wax la dhahayo ama parking inta badan la geeyo laakiin geerka iska ilaaliya ninka instructor-ga indhahaagu la soconaya la soco ma fahan kursiga iska hagaajiya suunka ilaawina haadka iska saxda marka furiiba ku dhiibi gaariga log bukaasi geliyay halama la fahmay log bukaasi gelinaya kadib ku dhigo furaha adoo xasan marka maanta dhan furaha ku rigi gaariga log ku jira steerinka uu xiran yahay steerinka qoful baa ku taagan qofulkana qaab looga bixiyo jirta furaha maanta saan ku haysaa gaari maxaa ku dhacay ku haysaa gaari maxaa ku dhacay halkaas ay taxanka uga dhacday fi amaan la halama la fahmay soo sidee looga saaraa oo unlock loo sameeyaa in log waa unlock see loo saaraa waxa loo saaraa waxa la dhahayaa ACC macnaheedu waxa way to unlock the steering when you want to drive مثلا gaariga marka kaxanayso ayaa looga bixiyaa qaab loo xiraa jira steering qaabkaas hadii cashirka uu ku dhaafay cashirka dambe soo daawo TikTok aan soo geliyay YouTube aan soo geliyay soo steeringka marka la xirayo furaha looga la keenaa waa laga soo saaraa مثلا baawur qaar ayuu ku jiro furaha loo jooga ku xiri karta qaarna kama ogolanayaan soo gaariga haduu naacayo maxaa ku fiicana ka soo bixiso furaha kadib gaariga waxa loo xiraa kolba dhinac uu ka ogolan haddii dhinacan u soo leexiso uu ka diido left right ay u celin kartaa hal mar wada wareejinaysa gaariga illa iska soo xiray full lag ahaan iska soo xiray yani meesha ugu dambeeyay qaacba ka steering markuu xirmo loo ku jira haddaba see looga saara log ya hal mar wareejinaysa asaga dhan wareejinaysa gaariga steering sa wareejinaysa marka qaacba ka yeelayso hadduu dhinacan ka diido right ka left ku baraawe kuma dhigi kar right buu xirmaa kuma dhigi kar left u xirmaa waxay ku xiran tahay ninka gaariga soo gali qaabka u soo gali ku xiran tahay inta faan isu wala soo tacaamul soo waxa laga yaabaa hadduu right ku diido left steering u xir hadduu right ka diido leftna right u xir afadaali halama la fahmi kadib waxa sameynaysaa see looga saaro log iska ilaaliya steering iska fiiriya log inuu ku jiro taanka ka galisa waxa ku ogaan kartaan saa marka steering aqooto ma leeligmayo steering hadduu log ku jirin waa caadi u socon gaariga marka steering ku jira gag u shan camal noqonaya ma dhaqaaqayo inta uma leexin karto oo bidaha midigna uma leexin kartiin halama la fahmi seeso looga saaraa log marka gaariga log ku jira furaha marka hore gelinaysaa dhanka u xidho waa garanaysaa dhanka u xidhay iyo ku xidhan tahay haddaad u xidhay dhanka right-ka ah hal mar left gaariga bidixda steering-ka gacanta bidix ku qabo gacanta bidigna furaha ku qabo yaa steering waxaad u celinaysaa dhankaad u xidhay oo midig hadduu ahaa hadduu bidix u xidhnaa aad u xidha ogeed bidix u celi hadhow waxaad ku garan kartaa su-aal way weydiin kartaan ma fahanteen waa inaad su-aal weydiisaan waa sababta waxaa dhacday right baa u celisay waa inaad su-aal weydiiso su-aasha ay weydiinaysaan waxaa waaye aan ka jawaabi lahaa ay rabeen inaad weydiisaan sababtu ma maxay right oo ugu bilaabayso kuma bilaabi karta right ama left marka hore waxaad fiirinaysaa gaariga meesha uu xiran yahay haddaad dhanka left u celiso steering-ka uu u leexan waayo dhinacan aad right uu ka ogoloodo macnaha waxaa waa ninkii xiray wuxuu u xiray right dhinacu u jilaaco steering-ka ayuu u xiran yahay ma fahanteen soo steering-ka dhinac u xiray iyo fiirinaysan markaad u celiso waxaad geenaysaa ACC furaha uu ka ogolaan markaas jig oo furno gaari ACC waxa way to unlock waa furtay halaa la fahmay waa furtay steering waa furtay markaas okay waxa ku xiga on oo ima marka koowaad waxaan ku dhawaa log marka labaad waxa way ACC waa lagu furaa on means everything that is on except the engine gaariga dhan dashboard-ka soo bixi dashboard maxaa ka haysan saacadihii sida handbrake sign-kii battery-gii engine-ki gaarigiisii saacadihii baa soo bixi sida baalki temperature gauge-kii wax walba soo bixi suunkii gaariga airbag-gii waxyaalo badan soo bixi calaamadaha marka waxa la isku dhahaa warning signs waa calaamadaha digniinta dashboard-ka yani saacadaha steering ka dambe soo boodayo markaas kale waxa isticmaali kartaan radio gaariga waa isticmaali kartaa layadka gaariga waa isticmaali kartaan muraayadaha korood u qaadi kartaa hoos u dhigi kartaa gaariga kuwan side mirror-yaasha waa furan kartaa markaas oo kale waad xidhan kartaa charger telefoonka gashan kartaa whatever gaariga on muku yahay waxyaalahaas dhan isticmaali kartaan alama la fahmi soo waxa ku soo hadhay start gaariga start gees jaqiiq ham gaarigu ka already markaas soconaysidii waa socotaa marka iska ilaaliyo fadlan marka exam-ka galeysaan oo kale waa la isku sameeyaa arday badan waxa jirta uga dhacday imtixaan waxaas oo kale oo gaariga intii log laga sii galiyay ninkii exam-ka qaaday u dhiifra aad kullu guriga school ku leeyahay go back to school ha waa ka dhacday go back to school soo baro 2 weeks kale ku cesho exam hadana exam-ka Kenya sidiisa waxa waaye one day la galaa
one day result soo dhacaya after 12 hours result soo dhacaya subax gasho ka soo qaad evening ku soo dhacaya result hala ma faham ha waxaad keentay dhibcaaga ku soo dhacaya okay aan ka socono marka so start ba marini start waa kicisay marka waxaan baranaynaa maanta bayterigan ku bilaabeynaa bayteriga waa maxay shaqadiis bayteriga shaqadiis waa maxay what is the work of battery wala weydiin kara exam ka xitaa bayteriga shaqadiis waxa waaye dabkeediye inta ma fahmay dabku noo keediya ma fahanteen bayteriga hadii loo isticmaalo waxaan dhahay laba nooc waay uses hadii noqoto laba nooc waay hadii la dhaho size cabir waa laba nooc waxaa la kala dhahaa 12 voltage iyo 24 voltage 24 markuu yahay loo bayteri ma fahanteen waxaan isticmaalaan baabuurta waaweyn 12 markuu yahay kan oo kale waa kan oo jeedaan waa hal bayteri hala ma fahmay hal bayteri weeyaan marka waxa ku soo haray si loo isticmaalo waxa jira dry battery wax la dhahay iyo acidic battery dry battery waa just dry kan waa kala waa waxaan lagu gartaa markuu dry yahay batteryga dry markuu yahay lagu gartaa color uu leeyahay sida green black iyo white ama red baawarta isku mid ma ah qaar baa red ah qaar baa white ah saas oo kala waa hada gaarigan oo kale wuxuu noo sheegayaa green black iyo white markuu green yahay waa full batteryga waa sax waa full u buuxaa markuu black yahay wuxuu ka rabaa charger inta walaal markuu white soo qaran wuxuu ka rabaa replace oo bedel ah waa ina bedeshaa so batteryga saas loo gartaa dryga markuu yahay acidic waa bayga hore la isticmaalo jiray hadda la isticmaalaa furar badan buu leeyahay kaas wuxuu ku shaqeeyaa biyo aashita ah ma fahanteen biyahan caadiga ma ah aashito ayuu ku shaqeeyaa asaga biyahaas wuxuu leeyahay level uu leeyahay lower level iyo upper level marka ya quality grade laftigiisa laakiin aashito ayuu ku shaqeeyaa marka aashitada markii dhamaato waa inaad ku dartaa baasha haday ka dhamaato aashitadaas uu dhamaan batteryga kuma shaqeynayo laakiin kan waxa waa saddexdii biloodba waad iska bedelaysaa hal mar alaama la fahmay so waxa uu maarayna marka batteryga cilada ku imaado hadana wuu dhamaan karaa 3 months laga inuu ku wado markii service la geenayo oo kale 3 bilood markuu ku gaaro oo kale adiga waxa ku xiran socod 3 bilood kuma dhigi karo socodka ay ku xiran tahay inta socoto kilometer waxa laga yaabaa inaad aadayso meel fog sida hadana Kenya joogna Garis iyo Norway oo kala goysana laga yaabaa wajeer ina aada laga yaabaa ku dhufto gaariga marka waxa laga yaabaa gaariga 1000 5000 lagu talagalay service in uu geeyo 5000 kilometer yaa lagu talagalay 5000 oo kilometer uu ku socdo yaa lagu talagalay service wax la dhahayo ma fahad saafina la geenaya gaariga waa la dayactiri waxyaalo badan baa laga bedelaya gaariga waa garanaysa marka saafin loo baahan yahay qabiis buu baahan yahay waa qabiis soo garanaysin gaariga qabiis buu baahan yahay qabiiska waxa waaye biraha laga bedelaya waa naashaya oolyada laga bedelaya bayteriga wax walba laga bedelaya maxal ii jiray biyihii hore la daadan wasaqdi hore waxa la tisfeenaya gaariga dhan baa la naashaya ma fahad saafinka lagu sheegay waa sidaas saafin gaariga marka la geenayo bir walba ama gaariga ku jiro wax walba laga hagaajinaya inta ma fahad marka waxa lagu geeyaan ku dhashan kilometer marka 5 kilometer gaarmu gaari marka hadda ka waran adiga waxa joogtaa Nairobi oo kale isli oo kale iyo meelaha ka shaqeystaa gaarmu gaari 5 kilometer socodka uu iska yiri waxa laga yaabaa maalinta dhan inaan shaqeyso 5 maxaa ka wada 5 kilometer ama 10 kilometer ama 30 hadda ugu badato waxa laga yaabaa inaad shaqeyso maalinta dhan 30 kilometer ma fahant ama 100 kilometer inaad shaqeyso laga yaabaa maalinta dhan 12 shaqeyso soo gaarmu gaari marka service ama saving ma fahant so aan marka waxaan u maanaynaa marka bayteriga ciladaha ku imaado yar ciladaha ina xalisal raba marka adiga dalwar hada tahay gaariga soo gashay ka soo qaad gaariga wuxuu leeyahay batterigiisa negative iyo positive negative kiisa always waa black so artin negative is always black way waa madowgaas positive kiisa waa gududkaas lagu gartaa marka ha isku qaldina negative iyo positive fiilooyinka marka way ku kala qoran gaariga marka batteriga way ku qoran tahay way ugu talagaleen company-ga soo saaray ugu talagalay plus iyo wuxuu ku qori minus the directing waa negative plus the directing waa positive kala ma fahmi soo fiilooyinka isku taabanina minus iyo plus hadda isku taabato bis waa gaariga batteriga isku qarxaya intaban soo waliha ma qashbel oo washo minus iyo plus taabato sidoo kale waa marka soo batteriga hadda isku qawataan sidoo kale noqonaya batteriga uu waalanaya asagana ma fahmi soo waxa la rabaa mid walba inaad ku qawataan negative to negative positive to positive qoonaysan marka gaariga soo gashay ka soo qaad inaad kicisaa damacday uu kici waayay qarraf ku haya batteriga gaariga waa kacayo maanta dhan marka iswaan cilada ugu horeysa ee batteriga ku imaato waxa waaye loss of connection wax la dhahayo waa yarada ma aragtaa batteriga wuxuu leeyahay labada naas ayo wara yaa lagu xiyaa waa kaaba
soo halkan